السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. ومركل يا عشرين امتحانها هاي أوتوديسك أوتوكار 2007. ما أنتم حكوا قاعدين relative Cartesian coordinate system هي absolute Cartesian coordinate system. سير rectangle هذا صورنا لبضع إنه استعمالنا. relative هي absolute محاولة حياة. أديب for example أنا برتا click لها. Okay, I'm from the origin 0,0 and كسب لو the line كيا. عندنا عشرة دقائق. أنا برتا نيمة relative كديجو. sorry bartan animada absolute aan ka dhigo maxaad aragtaa coordinate in status ka wuxuu ka tusaya kolba barta aad taagan tahay maxaa dhahay from the origin ay kaga soo akhrinaya coordinate ka uu ku siinaya values ka xaga kaas tusayna origin ka ay ka soo bilaabeen dadna barta taagan tahay from the origin buu kaga akhrinaya ama coordinate ka uu tusayo from the origin weeyaan for example xaga aan taaganahay -1 in the x iyo y da oo -0 ya y coordinate waxaan joognaa quadrantiga saddexaad ay kaga soo akhrinaya click right click enter for example hadii aan ku soo celino bartan oo kale pointiga aad ka bilaabayso mar walba coordinate values ka xaga ka siinaya oo from the origin ay ka yimaadeen okay hadan definition kiisa akhrin muxuu leeyahay absolute coordinates are coordinates kuwaasoo waa coordinates ka that reference ka siinaya the position of an objective yani ku sawiran position kiisa wuxuu reference ka siinaya to an origin in a coordinate system origin ka coordinate system ka ayuu ka soo siinaya oo ka dhigan bar walba ka bilowdo okay position ka socoto mar walba from the origin ka soo akhrinaya coordinate ka uu ka yahay okay and hadii markaan faahno relative ku muxuu yahay relative ku isagu waxa weeye in uu for example definition kiisa asmaan soo akhrino relative coordinate distance the distance we are relative to the last point ugu dambeeyay click garaysa ama big garaysay for example bartaas aan click dhahay right click ban xagan yimid dadna relative ban ka dhigay wuxuu tusayaa pointigaas ayaa mar walba origin kayga and distance uu tusayaa kolba dhinaca u dhaqaaqo hadan left u dhaqaaqo hadan right u dhaqaaqo hadan left u dhaqaaqo bottom top kor iyo hoos down up wixii aanu dhaqaaqaba wuxuu tusayaa last pointigii baa maxaa dhahay referencega distance uu tusayana last pointigaas 0,0 iga soo bilaabaya for example click bartaasaan yidhi haddaan bartan baa imika referencega ama distance uu tusayo waa pointigaas ayaa ii noqonaya the relative maxaa dhahay distance uu tusayo okay barta uu absolute haddii aan right click barta absolute ka dhigo from the origin yahay oo dhinaca 0,0 ga noqonayso barta aan taaganahay coordinate values ka uu tusayana ay noqonayso okay marka hadda example waxaan arki doonaa absolute aan ku sameeyno class ku xigana relative kan ku soo sameyn doonaa insha Allah saan sameeyo rectangle kan from the origin wuxuu ka soo durkay value in the x along the x 1 buu ka soo durkay sidoo kalena y dana 1 buu ka soo durkay saan sameeysana horta rectangle kan weyn baa sameeyna leeyahay oo ka dhigan origin ku ka soo bilaabmaya 0,0 widthgiisiyo lengthgiisuna uu yahay 9 okay rectangle ka dan soo qaadano ibna 0,0 andaho enter waxaad aragtaa inuu origin ka soo qabsamay ibna 9 widthgiisa iyo 9 oo y diisa ama x iyo y diisi okay rectangle ka weynoo samaysmay okay shay kale tan aanu soo samaystay adiguna soo samayso click shax aan raba inaan ku faahno saan coordinate ka ama maxaa dhahay values ka aan gelinayno aanu yaano aragno si practically ayaan shaxda soo samaystay adiguna soo samaysan kartaa adoo offset isticmaalaya oo labadii line ba u dhaxaysiinaya 1 okay polyline ba soo qaadanaya click intaan polyline soo qaadan escape baan iskaga reebo bartan ayaa rabaa inuu dhumuc yeesho line kan isticmaalayo okay 0.3 thickness baan u sameeyay dadna polyline kii baan soo qaatay maanta waxaan isticmaali doonaa maxaa dhahay value walba oo gelinayno barta command palette kan isticmaali doonaa okay number 2 widthga rectangle ka yar waa 3 dhererkiisuna waa 2 okay pointigu ka bilaabay reference ama origin pointigu waa 11 polyline ki baan soo qaatay barta commandiga nimid 1,1 enter baan dhahay waad aragtaa inuu ii soo qabtay 1,1 dadna bartan ayaan ku soo noqonayaa okay 4 escape 4,4,1 enter baan dhahay okay anaan xaga ka dhaqaaqin 4 okay escape 4,4,3 waxaan rabaa korka inuu igu soo sawirmo haye 1, bartan igu qor 1,3 mar walba waxaad hubsataa inaad barta ku qorisid inputkaaga ama valueskaaga okay
waxaan rabaa inaan kii ugu dambeeyay ku soo noqdo lababa waan kala inaan c taabto close dhaho amaba 1,3 aan ku soo yani maxaa dhaha 1,1 aan dhaho okay 1,1 ayaan isticmaalaynaa iminka okay barta amaba c aan dhaho waanu karnaa inaan maxaa dhahay aan gelino inputka 1,1 maadaama coordinate-ka barta inoo taagan yahay 1,1 aha hadda waxaad aragtaa inaan rectangle ka samaynay oo dhinacana 3 yahay for example 1 2 1 2 3 amaba xagan haddaad soo eegto 1 2 3 inuu yahay laakiin barta coordinate-ka uu taagan yahay xaga waa 4,1 oo ka dhigan from the origin ayaa laga soo akhrinayaa xaga kan uu ka duwanaan doono waan arki doonaa okay example kan xagan igu samaysan aan soo qaato move aan soo dhaho haddii kan isku dayna imika for example origin ka bilaabay muxuu yahay 1,5 oo ka dhigan along x1 along y-na waxay ka dhigan tahay 5 bartaas ayuu noqonayaa then 4,5 wuxuu noqon doonaa kalabaad 4 okay 5 bartaas usaa uga farcimi doonaa for example haddii aan polyline soo qaato on dabadeedna ku duuduubiyo 1,5 enter and waad aragtaa pointii xagga iga soo qabtay 4 okay 4 sorry escape leh and polyline soo qaado dabeedna 1,5 enter 4 ku celi 5 enter okay dabeedna pointiga saddexaad baa rabaa 4,6 enter dabeedna pointiga 2,8 baa rabaa okay korka markuu kaa qormo maxaa dhahay comma taabato dib ayuu ku soo celinayaa 4,2 okay 8 mar walba si aadan uga dhex bixin yani qoraalka hadduu xagga kaa qor waxba aadan taaban comma markaa taabato barta commandiga kugu soo celinayaa hadda 2,9 baa rabaa okay comma markaa taabato 2,9 enter korkiiba u baxay okay waad aragtaa haddii aan kusoo noqdo waxaan rabaa pointiga 1,9 ka 1,9 enter uu ii samaysmay si aan kaa ugu soo xidho waxaan karaa 1,5 inaan qoro ama c enter aan dhaho waad aragtaa inuu isku xidhmay okay waxay ka dhigan tahay pointiga taagan tahay from the referencega ayaad yani markaad entry systemkaad samaynayso from the origin ayaad yani coordinate valueska aad gelinayso aad ku xisaabtamaysaa waayo bartan xaggan 3 bay ahayd barta kusoo bilaabmay 1,1 buu ahaa dhinacan markaad saa u durugto 3 baad durugtay 1 plus 3 waa 4 from the coordinate-ka markaad kasoo akhriso okay class ku xiga waxaan kusoo qaadan doonaa relative coordinate qaabka yani relative Cartesian coordinate systemka loo isticmaalo marka adiga waxaan ka rabaa inaad pointigan aad soo saarto pointiga mar walba beertadan istaago fiiri coordinate statuskaaga okay click bartana click videoga qabso hoosta eeg kolba pointigan click garaynayo dabeedna aad soo practice garee inaad kaa soo samaysaan rabaa okay right click enter pointiga midka rabta ka bilow video ku soo cesho amaba aan imika ku dul saaro 1 2 3 okay qabso mid walba qabo si aad u practice garayso ood u fahanto absolute Cartesian coordinate system markaad isticmaalaysid okay assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh